wadaagaya calaamada ugu horeysa waxa weeyaan ilmihiyo hadalku ka raago calaamada labaad waxay noqonaysaa ilmihiyo nin ku soo eegeen calaamada saddexaad waxay noqonaysaa ilmihiyo dabeecado soo noqnoqda sameyn السلام عليكم walaalayaal ku soo dhawaada channelkayga anigu magacaygu waa Nimco Xasan waxaan ahay kalkaaliye caafimaad maanta waxaan nila wadaagayaa xaaladda autismiga ee af Soomaali la yiraahdo maangaarka siiba 10 calaamadood oo ku saabsan autismiga ayaan maanta nila wadaagayaa calaamada ugu horeysa waxa weeyaan ilmihiyo hadalku ka raago oo aanan kula hadlayn oonan ku jawaabayn oo guux badan marka ilmihiyo waxaad arkaysaa isku tijaabinaya inuu hadlo oo laakiin guuxaya amba aanan hadlaynba calaamada labaad waxay noqonaysaa ilmihiyo nin ku soo eegeen markaad u yeedhid amba u wacdid magaciisa oo tiraahdo heblow halkan kaale oonan soo jeedsanayn ayaad arkaysaa marka ilmihii oonan ku soo eegeen oo indhihiisi aynan dhinacaaga u soo jeedsanayn marka marmar baa la moodaa inay caruurtaasi ay dhiga culus tahay amba aynan waxba maqlin marka dhakhtaradu waxay ku odhanayaan dhagaha ilmaha kasoo baadh marka waxaa lagu odhanaya amba dhaguhu wax ka qabaa amba ilmahaasi waa autistico kuma soo eegayo markaad la hadashid calaamada saddexaad waxay noqonaysaa ilmihiyo dabeecado soo noqnoqda sameynaya oo imika wuxuu ku ciyaarayaa oo kale caruuruhu toys kanay ku ciyaaraan ay warwareejiyaan markaasuu kusoo celcelinayaa hadaan dabeecado soo noqnoqda sidaasoo kale gacmaha inuu ilmihii flapping hands uu gacmihiisii uu ka ciyaarsiiyo oo mar walba sidaa idhaahdo amba uu wejiga uu warwareejiyo amba uu indhaha marmar uu yaro weeciyo sidaasoo kale marka wax dabeecado soo noqnoqda ay caruurtaasi badanka ay leedahay calaamada afraad waxay noqonaysaa faraha hore lugaha ayay ku socotaa oo ciribta dhulka ma saaraan marka waxaa la yiraahdaa walking on tippy-toe af Ingiriis marka badanka waxaad arkaysaa caruurtaas oo ciribta ku socota faraha lugaha hore ku socda oonan ciribta maahe faraha lugaha hore ku socda oonan ciribta dhulka dhigayn ayaad arkaysaa calaamada shanaad waxay noqonaysaa ilmihiyo aanan si fiican aanan seexan inay hurdadu ka xun tahay waxaa la yiraahdaa sleep disorder amba caruur badan oo autistia ayaa markay isiraahdaan seexda ay hurdadu ay waqti badanka ay ka qaadanaysaa siday hurdadu ugu timaado amba habeenkii in badan kackacaya amba toostoosaya oo hurdadu ay ka khaldamayso marka sleep disorder baa la yiraahdaa marka caruur badan baa amba vitamin la siiyaa amba mar walbaba waxaa lagu odhanayaa jirka u maydh amba jirka u dhaq oo siduu ilmihii uu nafiso uu hurdadu hore ugu timaado calaamada lixaad waxay noqonaysaa caruurtiyo tariiga badan aanan jeclayn oo tariiga badani uu dhibayo amba guuxa badan aanan jeclayn marka caruur badan baa markay xaflada jiraan amba meelo badan ay dadku iskugu imanayaan amba meesha caruur badan ku ciyaarto la geeyo dhaguhu isqabanaya markuu guux badan uu maqlo oo way dhabaysaa guuxa badan marka caruurta badanka autistigoogu meel aanan guux badnayn oo degan oo tariig badan aanan lahayn ayay badanka caruurtaasi ay jeceshahay amba ay ku aamustaay ay ku degtaa calaamada toddobaad waxaan oran karayaa inay tahay ilmihiyo kalinimo jecel cidlada jecel inuu kalidii uun ciyaaro amba kalidii uun meel uu fadhiisto uunan caruurta uuna jeclayn badanka inuu dhex galo oonan ayna caruurta kale waxay jeceshayn caruurta kale ay raadisaayo iyo doontaa inay la ciyaarto oo ilmahaasi ma jecel inuu caruurta dhex galo amba uu ka cabsoodaa marka ilmo kalidii cidla meel kalidii ciyaaraya oo
jecelun inuu keligii un meel uu iska joogo. calaamada 8aad waxay noqonaysaa ilmihiyo marka laga bedelo wuxuu u bartay routine changes. isbedel markuu yimaado imika waxaa laga yaabaa inuu meel ku cuntayn jiray cisho walba oo meeshii uu ku cuntaynayay laga bedelay oo meel kale la fadhiisiiyey. ilmahaasi wuu cadhoonayaa amba wuu qayliyayaa amba aad iyo aad ayuu uga xumaanayaa. marka intensive behavior buu yeelanayaa, dabeecadiisa isbedelaysaa marka laga bedelo wixii uu u lahaa uu garanayay oy wax isbedel uu dhaco ma jecla. caruurtu isbedelka ma jecla autistic waxay jecel yihiin in mar walba cisho walba sidii ay garanayeen wixii ay ogaayeen inay mar walba la imaado amba loola dhaqmo ayay jecel yihiin, wax laga bedelo ma jecla. calaamada 9aad waxa weeyaan receptive communication baa la idhaahdaayo markuu qofku kula hadlo fahmadaada. marka qofku hadduu imika wax ku weydiiyo sidii aad ugu jawaabi lahayd. marka caruurta autistigo fahmadoodu caruurta kale way ka yartahay. kama dhigna waxba ma fahmi karaan amba si gaaray wax u fahmaan waayo maankoogu waa gaar. waxa weeyaan sidii caruurta kale markaad ula hadashid amba tiraadid heblow sidaa samee ilmihii kuma fahmayo. markaaba waa inaad in badan ku celcelisaa amba taswiir aad tustaa amba si gaara aad ula hadashaa. marka fahmada caruurta kale way ka duwantay. marka receptive communicationka ayaa aad iyo aad amba u yar amba ka dugan. calaamada ugu dambeysay 10aad waa ilmihiyo jacaylka badan iyo marka lagu dhegdhego amba la taataabto cuddling ayaa la dhaaf ingiriis iyo touching ma jecla. way iska kaa riixayaan oo la idhaahdo kaale hooy waan ku jecelahay oo carols baan ku siinayaa ii soo dhawow aan ku dhunkadee aad u caruurtaasi uma jecla. caruurina way iska kaa riixi, caruurina dib ku ha gareen mayso oo way ku sugi ilaa intaad dhammaynaysid. marka walaalo waad mahadsantihiin intaad fideogana dhammaysateen. fideoyo kalena insha allah waan soo wadaa oon ka hadlayo cudurada caruurtaasiiba ku saabsan iyo dadka waaweynba. please subscribe-ka igu dhufta, like gareeya, comments-kana haddaad waxila share gareynaysaan. anigu calaamadahan nila wadaagayo ma aha calaamado caruurtoo dhan ku saabsan autistic oo dhan maaha. calaamado kalena way jiraan waa calaamadaha ugu badan ee caruurtuna way isbedeshaa. markay yar yihiin waxaa laga yaabaa inay calaamado badan leeyihiin, markay weynaadaanna inay ka khafiifto. marka 10ka calaamadoodii waa calaamado ay u badan yihiin caruurta mangaarkii. marka halkan aan kusoo gabagabeynayaa insha allah waynoo mar dambe. asalaamu calaykum.